cabdiraxmaan cabdulqaadir faarax oo hore u ahaan jiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaaniyo ay wada gaadheen heshiis halka ku haya ehelnimo balse waxa uu xusay in aanu jirin heshiis ku saabsan arrimo siyaasadeed oo ay wada gaadheen heshiiskaanu heshiinay ma aha heshiis siyaasi ma aha oo siyaasad kama aan wada hadal siyaasadna kuma aan heshiinin waxaan ku heshiinay labadii reer ee walaalaha ahaa colaadii dhexmartay intay danto aan walaaltinimadayadii soo celino siyaasaduna waa siyaasad colaaduna waa colaad haddaan ka soo qaado cabdiraxmaan gudoomiye cabdiraxmaan ama jamaal cali xuseen de axmed maxamuud siilaanyo loolan bay kula jiraan oo kursigiisay ku socdaan laakiin colaadi kama dhaxayso marka de siyaasadeen colaadda laga saaraay waa caafimaad badan bay leedahay halkaas marka heshiiskaas labada qoysa ee walaaltinimo baanu gaadhnay cabdiraxmaan cabdulqaadir oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in aanay qorshaysnayn inuu qayb ka noqdo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Silaaniyo iyo xisbiga kulmiye anigu kulmiye noqon maayo dawladda gali maayo kursi anama doonanin iyaguna ima siinin sheekadaasi ma taalo ninka siyaasiga ee madaxa bannaan baan ahay ra'yigayga waa cabiranaya halkayga baan anigu waxaan haydee siyaasiga madaxa bannaan wixii wanaagay aan dalka u wado oranaya baan ahay waxaan hayni damac siyaasadeed leh oo hadii beedekeeda leeyahay halkan aan maanta joogo inaan ka sii gudbo doonaya qorshahaygaasi siyaasi ugu jira wax mustaqbalo maanta igu jira anigu in dawladdan ama kama mid noqdo ama ma jirto iyaguna waxay ila doonayaan oo jaga ay hayaan oo ileeyihiin cabdiraxmaan oo jagadaas aanu ku haynay ma jirto sheekada islaamaanaan gelin arintaasi qolooyinkii ku sheekeynayay hadii beedekeeda leeyahay kursi baa la siinaya iyo rashafal baa la soo samaynayaana haddii la samaynayona waa mid madaxweynuhu samaynayo anigu kama yihi qayb kama yihi kursi iiga banaani meesha ma jiro mid aan doonayaana ma jiro sheekadaasi halka sidaasaan u cadaynayaa laakiin heshiiska walaaltinimo waan soo dhaweynayaa colaada na dhaxmartay inay dhamaato waan soo dhaweynayaa waxaan u mahadnaqayaa dadkii ka shaqeeyay ee aad isugu taxallushiyeen colaadaasi na dhaxmartay ay dhamaato waxaan kaloo si fiican ugu mahadnaqayaa dadkii bulshada Soomaaliland ee maalintii markay mashaqad ku dhacday ee shirkii kulmiye taageeray iyo hadlay iyo codeeyay hoolka dhexdiisa ugu taageeray boorama ka hadlay Hargeysa ka hadlay Burco ka hadlay Hargeysa ka hadlay oo Hoodle ka hadlay siyaasigan ayaa kamid ahaa dadka ay aadka isugu dhawaayeen madaxweyne Silaaniyo oo ay muddo badan kamid aysnaayeen mabda'a siyaasadda hase yeeshee dhowrkii sano ee u dambeeyay ay ku kala fogaayeen siyaasadda isagoo sanadkii 2012 dibadda looga saaray shirkii kala dhaxay xisbiga kulmiye oo magaalada Hargeysa ka qabsoomay kadib markii lagu eedeeyay inuu ka hor yimi barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga kulmiye Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa